sheekh sayladani waxay leedahay kolay waa su'aal ay soo qortay hooyaan fulayno kolay inay dhageysanayso su'aashaasi inta sheekh weydiin waxaynu ka wareysiinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu weydiisanaynaa saacad kolay ijaabana waan ku jirnaay ilaahay waxay weydiisanayaan inuu ilaahay awlaadeenno hagaajiyo hooyadani waxay aad uga cabanaysaa ilmaheedu aad u dhibay marka sheekha waxay weydiinaysaa sheekh inaan ilmaha ka sabro oo sabir aan ka qaado ilaahay bari marka sheekh insha Allah su'aasha u deenayna afiiduna wajazaakallahu khayran de waladku ama ilmuhu de qofku naxariis badan buu hayaa waana de ilmihiisii marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lafihiinana ha habaarina awlaadiina ha habaarina marka hadduu ku adkaaday ama ilmahaasi dhibay yacni waa inay iska dulqaadato dulqaad ba loo baahan yahay laakiin ina tilaado waxay ugu ducaysaa inaan qalbigaygaba ilaahay ka saaro sax maaha haddii ruuxa dumarka tilaan kaba sabraba dee sax maaha boqolkiiba boqolna waxaynu hubnaa inaanu qofkaas ilmihiisa ka adkaysanayn walaalayaal marka yaan la habaarin waxa ina saaran waalidoo dhan waxa laga rabaa walaalayaal in loo duceeyo ubadka adducaa'u lilwalad waxa ka mid ah waxyaabaha marka la tarbiyadaynayo caruurta waliba dumarka de waxa laga rabaa iyo labada waalidba mar kasta ilmaha inay duceeyaan ama ha la joogo ama ha ka maqan yihiin ama ha adeeco ama ha ku madax adkaadee in loo duceeyo la yidhaahdo ilaahay walad saalixa iga dhig ilaahay walad saalixa iga dhig laakiin haddii la dhaha inkaari kugu dhacday ama waan kaa sabriba adiga sax ma hadde maxaad ka sabri waa waladkaagii si kasta xataa haddaad u sabirto haddii wax yar soo gaadhaan u danqanayaa weliba dee waalidku u danqanaya soomaalidu waxay tidhaahdaa ninaad dhashay kuma dhalin ilmaha isagu dee ilmaha waxa laga inaan isagu dhib fara badan laakiin waalidku dee hadduu xataa ka maqan warwar baa ku jira qofaad dhashay kuma dhalin bay yidhaahdeen dadkeennii hore waalidkun baana mar kasta dee xanuunka iyo dee culaysku saaran yahay ilmaha waxa laga yaabaa isaga oo 7 bilood iska maqan inaanu waalidkiiba xusuusan laakiin waalidku isagu dee qalbigiisu ku jira mar kasta warwar habeen kasta waxa laga yaabaa qofka ilmaha ka maqan inuu tolo maxaa ku dhacay ilmihi marka loo duceeyo waalidka de loo duceeyo waladka loo duceeyo awlaadana ilaahay saalixa inooga yeelo ubadka iyo awlaadda ilaahay walad saalixa waa saacadihii ijaabadee waa maalin jumca waana bacda salaatul casri ilaahay awlaadda haynoo islaaxiyo walad saalixa adduunyo iyo aakhiraba ilaahay haynooga dhiga awlaad saalixiina oo waalidka iyo samafalka iyo maaragtay ilaahay taqwada iyo alla ka cabsigana waafajiyo ilaahay baynu baryaynaa tabaaraka wa tacaala marka hooyadana waxaynu odhanaynaa iyadana ilmahana waaba jimce de u ducee ilmahana waynu ugu ducaynaynaa ilmaha ilaahay au islaaxiyo waladka ay ka cabatay ee dhibaya hooyadii qalbigiisa ilaahay taqwo iyo alla ka cabsi iyo daacat alwaalidayn waalidka mid adeeca allah ka yeelo waalidkiisa mid adeeca allah ka yeelo waa saacatul ijaabe ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu waladka walad saalixa ka yeelo barakallahu fiikum